زين رسمي maxaa ku daar saan waay rasmida intee ka dhacday rasmida intaa lagu tuuro intaa laga soo qaada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka ay daawanaysaan waa YouTube channelkayga Shaafici Official Team. fadlan hadday tahay markii ugu horreysay YouTube channelkayga subscribe, like, share, comment. cawada halkan waxaan soo fadhiistay inaan ka hadlo arrin yar oo iska jirta maalmahan lamaano YouTuber ku saabsan oo kala tegay sida aan fariimahooda qaar ku aragnay waa Rasmi Rays iyo Farxaan Yare barnaamijkan maalmahan oo socday inaan ka mahadlin sababtana waa hadalna waxay inaan xaqiiq raadiyo waxaan hubin inaan ka hadlana ma jecli horta markii fariimaha qaar arkay wallahi aad baan uga nahay lamaana shalay isku faraxsanaa waqtigooda qaadanayay jacaylkooda iyo quruxdooda iyo waxa isu qabaan ay ka dhex muuqatay social media in maanta aan ragno ayagoo kala tegay aad baan uga xumahay yani ka hor dhicin sida aan fiidiyoo badan ku soo arkay oo Rasmi Rays ka soo duubtay runtii meeshaas waxaa laga dareemi karay wuxuun ay ku yimaadeen jacaylkii ayadii Farxaan Yare ka dhexeeyay dan nagala jira ma garan karno labadooda qofka qalad kale ma sheegi karno laakiin waxaan ognahay Rasmi in Nairobi ku soo kaxay Farxaan Nairobi uu tagay Hargeysa u geeyay video daawo doontaan videogaas ayaan idin shidayaa si aad ogaataan bal waxa jira زين رسمي maxaa ku daar saan waay rasmida intee ka dhacday rasmida intaa lagu tuuro intaa laga soo qaada ishiina ishay iga dhacday inkaan idinku dhacday video sida ku soo daawateen Rasmi waxay leedahay ishiina igu dhacday oo il sida ka muuqato macnaha ila ayaan marka soo baxay ishiina igu dhacday leedahay wallahi waa ka xunnahay wax ku dhacay ninka raggaana waxaa la yidhi inuu dumarka ciidama fiicna walaalkii Farxaan waxaan leenahay haddii xataa lamaano kala tagaan adoo kala tagaan ma ahayn isagoo marti loo yahay gabadhii uu ka kaxeeyay Nairobi inuu saas oo dhaqmo video kale ayaa jira asna oo ay waxa jira iyo ku sheegi doonto oo ay leedahay macnaha wax jira in la wadaagi doonaa kaas dhageysta asxaabteyda iga raali noqda waxaan hay telefoon la'aan insha Allah marka telefoon soo qaato oo oga waxyaalo badan aragtina ogaatiin run iyo been waxay tahay insha Allah ana niga soo jawaabi doona sida ugu fiican ugu dhaqsiyaa badan hadii alimo laakiin telefoon la'aan ay mar baan Snapchat ka Instagram ka telefoonka kala ka soo gala markaas ay noocanaysa wana kaste inuu soo duceeyo oo yaraxna sanayo isha sanna bariiriga soo baxay xanuun weyn oo kala ma jiro alxamdulillah fiicana Rasmi waxay dhahday waxyaalo badan baa jira Rasmi xagee aaday ee la isweydiinaya waxay leedahay hadda telefoon la'aan baan ahay markaan Nairobi tagaan wax kasta sidii u sheegi doonaa ayaduna naxtin kale gabadha telefoonkeeda maxaa ku dhacay ma ka dhumay ma laga qaatay wallahu a'lam ma sheegi karno anaka taas rabbi baa naga og laakiin waxa meeshaas kaaga muuqata in xiriirkii uu burburay iyada iyo Farxaan oo waliba si aan wanaagsanin xataa lagu kala tagay waxa ka fahmi kartaa hadallada iyo waxyaalaha ay ku hadlayso Rasmi sheegayso la telefoon la'aan baan ahay telefoonka ku soo duubaya Nairobi safar soo ahay markaan Nairobi tagaan wax kasta soo bandhigi doonaa ilaa sidoo kale waxaa jirta in xaflad saxaabtooda ay ugu dhageen magaalada Hargeysa oo Farxaan uusan qayb ka ahayn laakiin saxaabtooda ay ugu dhageen xafladaas bal ayara daawan xanuunkii kalgacalkii kal haduu gubi jiray kaarkiisi waan riday xanuunkii kalgacalkii kal haduu gubi jiray kaarkiisi waan kalmad soo noqnoqotiyo kurba waxaad ku daysaa kalmad soo noqnoqotiyo kurba waxaad
kaga muuqata waa xaflad sagootina oo rasmi loo dhigay ayna u dhigeen saaxiibteeda Hargeysa ayadu uusan meesha taagnayn lamaanaheedii ama jacaylkeedii Farxaan marka meeshaas waxa ka cad in ay kala tageen sabab ay kala tageen Allahu a'lam ma ogin kulli ayada wax xaqiiqda jirta sheegi doona ta markay Nairobi tagto waxaan leeyahay marka hal mar aan wax rabaa inaan meesha hal kelmad ka iraado lamaanaha Soomaaliyeed maalmahan dambe YouTubers ku soo badanaya ee lamaanaha ku soo bandhigaya wax kasta oo nolosha qoyska ah wixii private loogu talagalay ku soo bandhigaya YouTube arrintaas wallahi waxay leedahay dhibaato badan maxaa yeelay dadkan wada isku faraxsan waxa laga yaabaa qola ay ka dinsan tahay ama aan faraxsanayn ama waxaan ba aan haysan in issue ay ku dhacdo oo ayba idin habaaraan waxa dhici karta waxaad arkaysaa dad ilmihii carruurta ay dhaleen soo bandhigaya dhahaya xaaskii intaas bilood waay xaaskii way dhal rabtaa xaaskii uur yeelatay cunugii uu dhashay waxyaalahaas oo dhan ma fiicna social media in la keeno ama meesha la raado YouTube sababtuna waxay tahay boqolaal waxa jirta in ma dhalin oo intaas oo la raadinaya waa lamaana boqolaal waxa jirta raadinaya inay wax dhalaan laakiin Ilaahay uu siinin marka waxa laga yaabaa ayagoo xataa aysan ka ahayn xasinimo indii xogaa ishooda ayadan ay ku qabato ama ishooda ay ku soo gaarto marka waxaan leeyahay waana waxa noqoto taas waana lagu qaato waxa ku dhacay Farxaan iyo Respress kulli cadow badan ay jireen marka dad jecel yihiin ama lamaana ama xiriir ay leeyihiin xataa xiddo xiriirkooda xiriir qarsoon yahay dad baa waxay isku dayayaan inay kala geeyaan ama isku diraan dadka lamaanayaasha ama ha ahaadeen kuwa isfukaansanay ama ha ahaadeen kuwa isjecel oo isguursaday marka nolosha qoysku sidoo waxay ku fiican tahay in private laga dhigto nolosha qoysku ma fiicna wax kasta oo nolosha qoysku ku saabsan lamaanuhu haddii YouTube soo wada fadhiistaan ay mowduuc ka hadlaan wax iska caadi laakiin waxyaalaha qaar wallahi waa wax aan inna macquul ahayn in maalin kasta la yiraahdo heblaaya dhashay hebel waa dhalaa heblaaya waa fool waxaas dad baa ka naxaya dad ku farxayaan kuwa ka naxaya hadda waa rasmi waxay leedahay ishiina in dhacday waxaan leeyahay marka walaashay rasmi waxa ku dhacay aad baan uga xumahay runtii in nolosha quruxda badneed aadka iftiimaysay jacaylkii la jiraayay burbur aad baan uga xumahay waxaan leeyahay walaal wad kaban doontaa insha Allah wax jirana war jirana akaar iimayl wixii jirana kulli ayada noo sheegi doonta markay Nairobi tagto xaflad sagootin Hargeysa lagu dhigay markay Nairobi tagto ay kulli wixii jira daha ka furo doonta marka tanna waxaan leeyahay lamaanaha isqaba dadka isqaba isku faraxsan ha u noqoto cibar qaadasho in cadowgu badan yahay ogaada dadka isku diray ay badan yihiin ogaada in isha bini'aadanku wax kasta inay ka darantaa ogaada oo isha bini'aadanku isa kasta kugu dhici karto mid xaasinimo kugu dhici karta midaan xaasinimo ahayna kugu dhici karta marka carruurtiina aad dhasheen ayagoo yiriisa inaad soo dhigtaan meeshaan waa laga fiican yahay jacaylkiini iyo wixii barafidka idin ahaa ina maalin kasta ku soo muujistaan ayadana waa laga fiican yahay waxaan leeyahay markasta YouTuberada Soomaaliyeed iyo inta is jecelba guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.